labaatan xigmadood oo ku saabsan jaceylka. kow qofka oo aynu ku doorano qurux iyo maal ma ahan jaceyl, laakiin qofka oo aad ceeb kasta ku jeclaato ayaa ah jaceyl dhaba. labo jaceylku waa jaahilnimo hesha qalbi madhan. saddex jaceylku waa saaxiibnimo dab ku dhex dhacday. afar jaceylku waa bar nasasho oo aynu ku ilbiriqsanno kuna hakanno kadibna nolosheenna ku sii ambaqaadno. shan jaceylku waa tijaabo xusuusteenna waarto laakiin da'deeda u cimri gaaban tahay sida ubaxa. lix jaceylku waa isqadarin xumada ugu quruxda badan ee kulmisa lamaanaha. toddobo jaceylku waxaa uu matalaa midhaha rumaanka, macaankiisu ayaa qadhaadh ah, qadhaadhkiisa ayaana macaan ku jira. siddeed jaceylku waa xabsi raali lagu yahay. sagaal ninku waxa uu jeclaadaa gabadha uu ixtiraamo, laakiin gabadhu ma ixtiraamto qof aanay jecleen. toban dhabta jaceylka waxaa u sabab ah ninka oo doonaya inuu noqdo qofka ugu horreeya ee gala qalbiga gabadha, iyo gabadha oo doonaysa inay noqoto qofka ugu dambaysa ee gala qalbiga ninka. 11 gabadhu waa jaceylka cadaabta ah, ninkuna waa cadaabta jaceylka. 12 gabadhu haddii ay jaceylka ku fashilanto nolosheeda inta ka hadhay waxa ay ku noolaataa xusuusta jaceylkaas, laase ninku waxa uu ku fikiraa abuurista jaceyl cusub. 13 ninku markuu hanto gabadha ayuu dhammaadaa jaceylkiisa, gabadhuna marka ay ninka hanato ayay bilowdaa jaceylkeeda. 14 jaceylka dhabtaahi waa inaad jeclaato qofka kaliya ee awoodo inuu kaa dhigo qofka murugada ku nool. 15 danayn la'aantu waxa ay dishaa jaceylka, ilaawguna waa uu aasaa. 16 jaceylku waa suldaan ka sarreeya sharciga. 17 jaceylku waxa uu bogsiyaa nabarro badan iyo xanuuno, laakiin ha u qaadan inuu daaweeyo, balse isaga ayaa ah cudur wax kasta ka weyn oo ku ilowsiin karaa xanuunada kale. 18 ilmadu waxa ay waraabisaa jaceylka, dhoola caddayntuna waa ay noolaysaa. 19 jaceylku ma ahan waali, laakiin waali badan ayaa ku jirta. 20 jaceylka dhabtaahi waa kan aad qiimihiisa garato goor ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen.